wuxuu ka dhacay magaaladan Muqdisho xaafada Kaaraan iyada oo iskuul u sii socota gurigeedii ku sii dhow ayaa gabadhatan wiilal qabteen wateen ficil aad u xun kula kaceen gabadha waa gabar yar oo 13 jir ah aanan qaangaar ahayn arintaas ayaa culays ziyaada ah sii gaarsiinaysa kufsi sidiisaba wax loo dul qaadan karo ma aha haween markii waxa ugu xun oo la gaarsiiyana kufsiga ayaa kamid ah hadii gabadhina aan qaangaar ahayn 3 mar iyo 4 mar ayay ka sii xanuun badan tahay ragii kufsigan geystay waa badnaayeen laakiin hadda waxa lagu hayaa hal insha Allah mar dhow waxaan rajaynaynaa kulligood in la soo qabto oo maxkamad la geeyo hadda alxamdulillah waan soo booqanay waaliidata gabadha dhaawac culus ayaa soo gaaray wasaarad ahaan iyo anigoo ah hooyo Soomaaliyeed wax alla wixii karaankeena ah waan qabaneena mana u dul qaadan karno filalkan oo kale shuruucdaas iyo sharcigaas ugu horeeyo wuxuu ku jiraa wali lama dhameystirin insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow in la dhameystiro oo la geeyana muxuu ahaa baarlamaanka mar alla markii la dhameystiro sharcigaas waa la dhaqan gelin doonaa xoog ayaan saareynaa sidii dawladda iyo siiba maxaan ku iraahdaa hay'adaha muxuu ahaa amniga inay shuruucahaas aad ay u xaq dhowraan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ficilkan laga fogaado diin ahaan waa qalad dhaqan ahaan waa qalad waxaan u sii sheegayaa ninkii ama qofkii shakhsigii ficiladan ku kaca in la horkeeni doono maxkamadda aan mar dambe aanin suurtoobeenin in ficilkan lagu kaco oo la iska mar magaalada